Okay, saaxiibyaal soo dhawaada. Maanta waxaan isla eegaynaa qaabka Coursera aad uga qaadan karto koorso free ah adiga oo dirsanaya financial aid. Saad ogtihiin ba Coursera waxay bixisaa koorsooyin lacag ah, laakiin inagu maadaama aan dirsanayno financial aid, koorsooyinka free ayaan ku helaynaa. Koorsada aan halkan kusoo qaadanayno maanta waxa weeyaan Google IT Support. Shirkadda Google ayaa bixisa koorsadan. Saad ogtihiin ba saaxiibayaal, Coursera waa mid ka mid ah baraha ugu caansan uguna waaweyn ee waxbarashada online-ka ah, halkaas oo aad ka heli karto courses ay bixiyaan jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn ee Google ka mid tahay. Marka Chrome-ka la soo baxaysa saaxiibayaal, barta search-ga ayaad ku qoraysaa Coursera markaad ku qorto official website-keedu waa linkiga ugu horeeya, dabeetana click ayaad siinaysaa. Waa kana saaxiibayaal, Coursera casharada laga barto bilaa lagu bixiyaa. Koorsadan bil kasta $30 ayaa laga dhiibaa, laakiin nagu free ayaan ku helaynaa. Waxaan sameynaa Google IT Support ayaa search ku qoraysaa saaxiibayaal. Waxa weeyaan koorsada magaceeda, dabeetana uu search gareynayaa. Waatana saaxiibayaal, barta ayay nooga soo baxday. Google IT Support ayaa ku qoran sida arkaysaan. Iyada ayaan click siinaya, iyadaan dooranaya. Dabeetana saaxiibayaal, financial aid-ka si aan u raadsado barta ugu hooseysa ayaa la soo dhigaa. Barta ayaa la soo dhigaa more questions, maaragtay ciwaanka ugu weyn uu yahay. Dabeetana financial aid available, barta linkiga ka horeeya ayaa lagu dhuftaa. Dabeetana waa kuwan koorsada intaas oo course ayaa hoos yimaada. Marka waa koorso aad iyo aad u ballaaran saaxiibayaal. Koorsada ugu horeysa waxaa la yiraahdaa Technical Support Fundamentals. Waxaa ku xiga The Bits and Bytes of Computer Networking, Operating Systems and You Becoming a Power User. Marka waxaasoo courses ah ayaa koorsada kusii dhex jira. Modules ma la dhihi karaa, courses ma la dhihi karaa. Waa courses un kulle iyagu course bay u bixiyeen. Marka koorsada ugu horeysa mid baa u dalbanaysaa, mid kasta iskeed baa u dalbanaysaa. Marka tan tusaale ahaan continue ayaad oranaysaa, page-kan aad imanaysaa. Page-kan marka waxaa lagaa buuxinayaa saaxiibayaal waxaa la wixii macluumaada ay u baahan yihiin inay ka ogaadaan. Dabeetana bartan waxaad dooranaysaa waxa aad tahay, ma high school student baa tahay, maadaama dee as a financial issue aad ka cabanayso, waxa weeyaan arday inaad tahay ayaa maaragtay ayaad barta ku sheegaysaa. Waxaad dooranaysaa bartan US dollars, $0 ayaad dooranaysaa. Waa annual income-kaaga ama sanadlaha waxa kusoo gala. Maadaama arday tahay 0 ayaad ka dooranaysaa. Bartan student ayaad dooranaysaa. Halkan saaxiibayaal waa muhiim, waxa lagaga baahan yahay qoraal dheer inaad ka qorto. Qoraal dheer oo ugu yaraan 150 words ka kooban inaad ka qorto sababtaad u apply garanayso financial aid-ka. Marka ChatGPT-gaad weydiin, marka waxaad ku qoraysaa why are you applying for financial aid, how do I answer that question baad ku qoraysaa ChatGPT-ga. Aniga marka template ayaan already soo diyaarsaday, wordka ayuu igu diyaarsan yahay. Template-kan ayaa maaragtay answers bartana igu qoran yihiin, ma garatay. Marka idinkuna ChatGPT-gan baad weydiin kartaan, qaabkan baad weydiinaysaan hore usoo sheegay. Haddii kalena direct message-ka ayaad iga soo qabanaysaa, aniga ayaan kuu soo diraya labada su-aaloodba jawaabahooda. Isku mid way noqon karaan, waa caadi. Waxaad sameynaysaa bartaasaad ku basic garanaysaa. 150 words way ka badan yihiin, aduu ilaa 200 weeyaan. Marka next baan dooranaya. Bartana ugu muhiimsan saaxiibayaal waxa lagu leeyahay masaad bixin karaysaa. Marka adigu dee inaad waxba bixiso uma baahni soo ma rabtid, waxba ma afford gareyn karaysid soo ma. Marka barta waad jiidaysaa, $0 ayaad ka dhigaysaa. Halkana mataqaanaa koorsada wataa saaxiibayaal $31 ayaa laga dhiibi jiray bishii. Marka how will your selected course help with your goals ayaa lagu yidhi. Marka su-aasha labaad jawaabteeda iyada laftirkeedu template baa ii diyaarsan oo bartan ii yaala. Sidoo kale waan idin soo share gareyn doonaa haddii la yidhaahdo haddaad DM-ka iga soo qabataan. Intan ayaa koobiyeysanaya, waxaan odhanayaa copy. Waa su-aasha labaad jawaabteeda barta ayaan ku paste gareynayaa, ma garat. Paste ayaan odhanayaa. Tan laftirkeedu waa in 150 words oo ay ka badato mataqaanaa qoraalka aad qorayso. Marka halkan terms and conditions ka maaragtay labada meeloodba waad saxaysaa. Labada meeloodba tick ayaad saaraysaa. I commit to finishing my Coursera course. Okay, barta ayaad hoos ba usoo yarbaxaysa saaxiibayaal. Please type the following sentence ayaa lagu yidhi. Isla sentence-ka baad qoraysaa. Marka iska koobiyeyso, intaa yar iska koobiyeyso. Okay, intaa yar iska koobiyeyso saaxiibayaal. I agree to the terms above ayaad oranaysaa. Intaa yar markaa soo koobiyeyso bartan
ayaad ku beesti garanaysaa saaxiibayaal. bartaa markaad ku beesti garayso halkan saaxiibayaal waa muhiim. I'm not robot ayaad dooranaysaa. wuxuu jeegaraynaya inaad checkup yar buu ku marinayaa. dabeetana bartan ayaad review ayaad ku dhufanaysaa. marka formkii aad buuxisay review ayaad ku dhufanaysaa. formkii aad buuxisay saaxiibayaal bartan aad ka arki karaysaan. waxa weeyaan wax allo haddaad wax qaladay application waad ku noqon karaysaa. marka saa iskaga jeegaree indhaha saa u marmari. indhaha marka saa u marmariso saaxiibayaal submit application ayaad leedahay. mar haddaad batanka ku dhufatana applicationkaagii saas ayuu ku tegay. marka saaxiibayaal message ka yar baa kugu soo noqonaya oo ah success we have received your application. marka saaxiibayaal jawaabta waxaa lagu soo siin doonaa July 7 2026 ayaa lagu soo siinayaa. marka adigu waxa weeyaan after 16 days aad 16 maalmood meelahaas ay kugu soo jawaabi doonaan. waxa weeyaan emailkaaga ayaana email lagugu soo diray, gmailkaaga ama emailkaaga waxa la whatever it is. marka bartaas lagugu soo jawaabi saaxiibayaal. marka saaxiibayaal koorsadaas ay ugu gudubtay. marka koorsadii labaad ee ahayd bits and bytes ayaan u gudbaynaa. okay saaxiibayaal, si aad koorsada ugu laabato mar labaad dib baad usoo galaysaa. hadda codsigeeda hal mid ah ayaad gudbisatay, mar labaad ta kale ayaad gudbisanaysaa. marka koorsada oo dhan hal mar isma wada raacayso. koorsi kasta iskii ayaad u dalbanaysaa markaa saaxiibayaal, waana isku hal koors ogow. marka koorsada labaad waa tan the bits and taa already financial aidkeedi waa diibtay ayaa laleeyahay. tan the bits and bytes of computer networking oo ah koorsada networkingka lagaga hadlo ayaad dib u dalbanaysaa iyada laftirkeeda. formkii waxaan malaynaya inuu bartiisii joogo oo wixii aad buuxisay kusii jiro 150 words meeshaan gelinayna wataas. bartaa unbaad saxaysaa. formkaagii already waa kusii jiray, laakiin bartan mar labaad iska hubi. bartaas ayaa ugu muhiimsan saaxiibayaal. haddii kale marka emailka lagu soo diro dib ayaa lacag lagu sii weydiin doonaa. marka jawaabtii labaad ayaa bartaa ka baxday. soo koobiyeyso, mar labaad ku beesti garee, dib ugu soo laabo, bartan ku beesti garee saaxiibayaal. waa su-aasha labaad. tii hore already way kusii jirtay, inama weydiin, waan kasii soconown. laakiin tan termiskeeda laftirkeeda sax. dabeetana intii yarayd iskasii koobiyeyso, bartan basti ku dhe sidii caadada ahayd. dhammaan courseska markaad dalbanayso saaxiibayaal camti a plus courses ma tiraahdo, bartan modules ayay tiraahdaa. laakiin Coursera nidaamkan ayay iyadu u samaysay. ma course ku dhex jira mooyaan I don't know. marka review baad odhanaysaa saaxiibayaal. dabeetana dib ayaad u eegaysaa waxalla wixii aad buuxisay bartanaad ka arki karaysaa. marka saaxiibayaal waxaan kula talinayaa inaad submit application ayaad odhanaysaa. koorsadii wataa tii labaad saaxiibayaal saas ayay ku gudbaysaa. markaan submit ku dhufto wataa saaxiibayaal way gudubtay iyada laftirkeeda. June 7 2026 ayaa la soo jawaabi doonaa. marka si ay koorsooyinku isku soo wada raacaan waa inaad hal mar wada dalbato. marka labadaas hadda pending ayay ku jiraan oo shirkadda xaggeeda ayay tahay inay kasoo jawaabto. marka aniga xaggayga way ka baxeen 16 days. after 16 days ayay isoo jawaabayaan. marka waan iska sugayaa saaxiibayaal. email baana isoo dhici doona. marka saaxiibayaal in aad maaragtay koorsooyinka sida yihiin aad u qaadataan oo aad certificatekeeda qaadataan. Google IT support haddii aad qaadato saaxiibayaal, Google certified ayaad noqonaysaa. cid kasta ayaa kugu baahanaysa dabeetana sababtoo ah nin shahaado ka haysta Google-ka ayaad noqonaysaa. marka saaxiibayaal sideeda inaad u barataan ayaan idin kula talin lahaa. assalaamu calaykum.